Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusoo dhawaada dunida channel. Hadda saaxiibaya barnaamijkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay qisadii asaasay shabakada WhatsApp. Haddaba kusoo dhawaada barnaamijkeena maanta. Inta aynu muuqaalkan aynu bilaabin, fadlan muuqaalkan like saar si aynu u noqoto dhiirigelin hadsanid. Jamcom wuxuu ahaa shakhsiga ugu horeeyay ee asaasay shabakada WhatsApp, halkaas oo ka marnay saaxiibkii oo la magacaabay waxaana lagu magacaabaa Brain Action. Aynu ku bilownaa qisada Jamcom. Jamcom wuxuu ahaa nin Ukrainian ah balse sabool ah. Jamcom iyo hooyadii waxay ahaayeen kuwo u baxsada dalka Mareykanka markii ay ammaan ka heli waayeen dhulkooda, balse markii ay soo gaareen halkaasi waxay ahaayeen kuwo caydh ah oo aan waxba haysanin, balse 16 jir ayuu ahaa. Haddana sidaas oo ay tahay wuxuu ka shaqeynayay nadaafadda wadooyinka. Kadib markii uu gaaray 17 jir ilaa 18 jir, balse sanadkaasi waxay ahayd sanad kombiyuutar, gaar ahaan waxaa la danayn jiray dhinaca borogaraamada, yacni waxaa la xiisayn jiray dhinaca borogaraamyada, balse nasiib darro ma uusan haysan wax kombiyuutar ah. Sidoo kalena lacag uu buugaag ku soo gato wuxuuna soo qaatay buugaag celis ah oo la isticmaalay mustacmal ah. Sidaas oo ay tahay waxaa geeriyootay hooyadii, balse waxaa garab istaagay saaxiibkii Brain Action, waxayna ku biireen shirkadda Yahoo. Halkaas ayay waxay ka shaqeynayeen 8 sano. Intaas kadib waxaa dhacday in ay ka tagaan shirkaddii Yahoo kadib markii ay ka waayeen wax macno leh oo faa'iido leh. Kadib waxay bilaabeen in ay codsadaan shirkadda Facebook si ay uga shaqeeyaan, balse kama aysan aqbalin. Muddo kadib Jamcom wuxuu soo iibsaday mobile iPhone ah. Wuxuu ku fikiray inuu soo saaro application mobile lagu isticmaalayo misna lagu wada xiriirayo, balse wuxuu u soo bandhigay saaxiibkii Brain Action oo ku waafaqay. Intaas kadib waxay u tageen nin ka kaalmeeya applicationkaas, inkastoo iyagoo aysan ahayn kuwo ku xeel dheer applicationada. Markii uu sameeyay kadib ay lacagtiisa siiyeen, kuma aysan qancin, waxayna dib ugu laabteen oo ay ka bedeleen designkii. Balse 2009 markii ay ahayd waxay bedeleen designkii haddana mar labaad, waxaana la soo degay 250,000 oo qof iyo in ka badan aaladda WhatsApp. Markii ay ahayd 2012 waxa ay gaarayeen dadka 10 milyan oo qof ah. Balse maxaad u maleynaysaa 2020 aynu hadda ku jirno inta qof isticmaasha? Isla sanadkan gudaheeda waxaa isticmaala 2 bilyan iyo dheeraad oo qof ah, waxaana laga isticmaalaa 180 wadan oo ay ugu horeeyaan wadamada sida Mareykanka, waxaana ku xiga oo soo labeeya Hindiya, waxaana soo saddexeeya sidoo kale Yurub ilaa aakhirka Afrika. Waxaa la sameeyay WhatsApp 2009 markii ay ahayd 2012 waxaa isticmaalayay in ka badan 10 milyan oo qof. Sidoo kale markii ay ahayd 2014 in ka badan 5 milyan oo qof. Sidoo kale 2020 waqti xaadirkan aynu ku jirno waxaa isticmaala in ka badan 2 bilyan oo qof. Inkastoo uu gatay WhatsApp ninka lagu magacaabo Mark Zuckerberg oo mulkiilaha Facebook, wuxuuna gatay sanadkii markii ay ahayd 2014, wuxuuna ku gatay lacag gaaraysa 19 bilyan. Inkastoo ay bateen lacagtaasi hadal hayntiisa 19 bilyan oo lacag ah oo lagu gatay hal application, dadkii wala yaabeen. Balse Mark Zuckerberg wuxuu ahaa mid garanaya qiimihiisa applicationkan. Ugu dambeyn, applicationka WhatsApp ayaa wuxuu gaaray caalamka intiisa badan ilaa wadamo yar mooye. Haddaba muuqaalkan intaas ayuu ku saabsan yahay. Haddii aad video ka heshay like saar, sidoo kalena subscribe saar channelka haddii aad ku cusub tahay. Mahadsanid. Wanaag muuqaalka xiga. Wassalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.